Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal waan ka xumahay in aan dhowaan video soo gelinin ilaa 2 bilood wax ku dhadhow ka raalli ahaada waxaan rabaa insha allah videogan in aan just update inku siiyo waxyaalahaas meeshii socdaan waxaa noloshii kusoo biiray iyo mustaqbalka channelkan iyo dhowr wax oo kale insha allah aan jeclaa inaan la sheergareeyo insha allah horta saa ogtihiin shaqaan bilaabay waana video in kula sheergelay hadda kahor saa u malaynayo haddii kale shaqaan bilaabay oo software engineering ah shaqadii ayaa waqti badan qaadatay ayadoo taas ay socoto yaa haddana waxaa soo gashay qoyskanaga geeri gabadha xaaska walaalkeed iyo hooyadeed ayaa bil gudaheed bil unbay isku dhexeeyeen labadoodiba geeriyooday marka arrimo la xiriira coronaviruska marka arrimahaas iyo qoys iyo iska garanaysaa waxyaalaha waa iska mashquulaa iska noqdaa marka sidaasaan 2 bilood oo soo dhaafay aanan wax soo gelinin aanan live u sameynin waxba u sameynin laakiin insha allah waan jeclaa markas wax inaan la sheergareeyo alxamdulilah hadda hargab yara ahayo waxaan u malaynayna coronavirus laakiin waxaa iska qaaday bahalka testiga ahaa marka codkayga xoogaha waa yara bedelan yahay marka alxamdulilah hadda kor waxaa idin yiri space oo meel oo xafiis ayaan u guuray xafiiskii waan kasoo guuray mid kalaan aan kareysay maxaa yeele kii hore spaceka igu yaraa hal qol oo ahaa halkaas qolna ima anficaynin in aan waxyaalo badan ku sameeyo marka alxamdulilah mid hadda waxaan soo degay 3 qol ah oo hal qol oo gooni loo sameynayo mediada bas ah inaan wax ku duubno ama wax micnaha lagu soo produce gareeyo oo weli hadda ay tahay isbuuci ugu horeeyay weli wax setup kumaana sameynin oo meeshii lagu duubi lahaa wax sidaa darteed hadda videogan u duubaa cod keliya laakiin alxamdulilah waa markii la fiiriyo space aad buu u weyn yahay 3 qol iyo waxaa waa meel oo front ama meesha ay dadka laga soo dhaweeyo leh marka waa space aad weyn insha allah mustaqbalka markii aan dhammaystiro setupkiisa wixiisa yaan hal mar idin tusaa haddii la yiraahdo qofkii raban insha allah sawiraan la sheergalaynaa facebook hadda igala socotid ama meelaha social mediada marka taas halkaas weeye arrintii dhinaca somali programmers websiteki waa meeshiisa arday aad u fara badan ha soo gasho maasha allah adiga 1500 ku dhaafayso marka somaliprograms.com update aan ku sameynaa waxyaalo badan aan soo gelinay insha allah halkaasna waa kala socon kartaa casharo badan markii noqoto casharadii hore oon idinka ballan qaaday way soo socdaan insha allah casharo badan oo php ku saabsan kuwa badan oo aan dhammaynayno python oon advance ku darayno projects iyo waxyaalo kala duwan iyo maasha allah way soo wada socdaan dhammaan marka updatekaasaan rabay inaan idin siiyo midda kalena waxaan rabay insha allah in aan inku dhiirigeliyo in aad dadaashaan oo meesha kasii wadaan for example hadda haddii aan ka hadlo shaqada aniga aan shaqeeyo as example haddaan kaa siiyo shaqada aan shaqeeyo waa software engineer company u shaqeeyaa alxamdulilah the bayga aad bay u fiican micnaha lacagta aad bay u fiican tahay marka soorta meel markaad bilowdo challenge iska jiraan ama waxyaalo micnaha ka hor imaanaya way jiraan laakiin hadda software engineer ahaan si remote u shaqeeya oo anoo guriga jooga ama xafiiskayga joogaan ka shaqeeyaa companyga wuxuu ku yaalaa state kale ama gobol kale uu ku yaala maraykan ka mid ah marka alxamdulilah waa skill aad u fiican oo la raadinayo markay noqoto telefonkayga adimayo markay noqoto software engineeringa aad baa loo raadinayaa qofka skillkaas leh jaabka igu jira waxaan naloo joogaa maqrib marka skillkaas aad baa loo raadinayaa waa ogahay dadka oo Soomaaliya joogo way ku adag tahay in ay shaqo remote helaan ayagoo halkaas joogo laakiin wax ma ahan oo aan give up ku sameynayna ama aan iska joojinayna ma aha waa wax aan insha allah raadinayno oon rabno insha allah in ay macquul noqoto dad badanna waan ka wareysanayaa oo si ay dhalinyarada Soomaaliya joogo ayagoo halkaas joogo ay shaqo remote u heli karaan wax adag waaye oo hadda aanan loo heli karin micnaha xal oo hadda degdeg ma la heli karo laakiin haddii la raadiyo wax kasta waa macquul wax kasta la hagaajin karaa
marka taasna waxa weeye wax weyn maalooto waxaan siiyey interview ayaa waxaan siiyey idaacad local hadda korna waan siiyey waa idaacad yar oo ku taala magaaladana deganahay magaalo yar oo St Cloud la yiraahdo marka waxyaalaha fursadahan ka hadalnay uu leeyahay technology-ga waxaa kamid ah inaad ku shaqaysan kartid waxaa kamid ah in aad adiga barnaamij adiga aad bilaaban kartid oo software camal aad dhisi kartid ay dadka faa'iideystaan lacagna ay ku bixiyaan in aad dadka bari kartid waxyaalo badan oo waxaa jiro fursado badan marka dadka janaalkii la socdana way garanayaan marar badan aan ka hadlay marka insha Allah haddii ha u malayna waxaa baranaysa inay yihiin wax oo aan meel lagu gaaraynin xataa hadduuna qof ku shaqaalaysiinin adiga wax ku samaysan kartidood mustaqbal ku samaysan kartaa marka insha Allah halkaas ku joojinayaa aad ama mahadsantiin channelka subscribe ku dhufta 20000 inaan gaarnaa runaa hadda 90000 aan mareynaa alxamdulillah waan ku mahadsantiin dadka dhammaan subscribe ku sameeyey barnaamijyo kale aan soo gelinaa insha Allah khayr idin rajeynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh